Action! kusoo dhawaada DD Production Film. Waxaan halkan idinku haynaa 10 filin ee ugu actionka macaan abid Hollywoodka. Filimadaas oo ah kuwii hore iyo kuwii dambe, iyadoo loo eegayo qaabka quality-da, qaabka soo xareynta dakhliga si degdeg ah. kaalinta tobanaad waxaa ku jira filimka The Bourne Ultimatum oo soo baxay 2007 bishii July 25-teedii. filimkani oo leh agshimo aad u macaan. filimkani waxaa director ka ahaa Bjorn Greengrass, waxaa soo saare ka ahaa Frank Marshall, waxaa jilyaal ka ahaa Matt Damon iyo Julia Stiles. filimkan wuxuu soconayaa 1 saac iyo 15 minut. waxaa lagu maalgeliyay filimkani lacag dhan $110 milyan oo dollarka Mareykanka ah. lacagta box office-ka uu soo saaray waa $442.8 milyan oo dollar ah. sidaana wuxuu ku galay kaalinta tobanaad filimaanta ugu actionka macaan abid Hollywoodka. Do next. Do you remember now? kaalinta sagaalaad waxaa ku jira filimka Skyfall. filimkani oo lahaa agshimo aad u macaan waxaa director ka ahaa Sam Mendes, waxaa soo saare ka ahaa Michael G. Wilson, waxaa actor ka ahaa Daniel Craig iyo Naomi Harris. filimkani waxaa la soo saaray 23 Oktoobar 2012 London. waxaa noqotay wax aan la ilaabi karin akshinada khatarta ah ee filimkan ku jira, kuwaas ay soo bandhigeen jilyaasha filimkani dhiiranaan ay ku sameeyeen akshinadan. filimkani waxa uu soconayaa 1 saac 43 minut. filimkani waxaa lagu qarash gareeyay 150 ilaa 200 milyan. waxa uu soo saaray box office-ka $1.9 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. It's done to you. Well, she never tied me to a chair. Her loss. هلا waa codayntii iyo soo jeedintii Ducaale Daacad, waa farsamadii iyo diyaarintii Cabdishakuur Cali, sida iyo la socosho habboon iyo qaybaha dambe ee xiiso badan leh.